Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada cashirkeena maanta waxaa ku arki doonaa waxa la yiraahdo view-ga muxuu yahay, qaabka loo garto view-ga noocyadiisa, iyo inaan sameyno dhowr view oo common ah. Marka hore waa maxay view waa waxyaabaha ka muuqda shaashada taleefankaaga ama programka aad isticmaaleyso oo markaas qofka isticmaalayo ku arkayo, sida qoraalada, sawirada ama batanada. Marka view-gu waa waxa xogta ama contentiga barnaamijka wado. View-yada waxaa ka mid ah button view ama image view ama recycle view. Waxyaabahan inta saaran kuwa hadda ku muuqdo waa commonka. Haddii aan dhaho kuwa qoraalada lagu soo bandhigo, text view, plain text, password, email, button kaligooda, image button, checkbox. Waxyaabahan ayaa view ah. Waa waxyaabaha sameynaya naqshada shaashadaada ama layout-ka screen-ka oo markaas qofka user-ka oo la falgalayo. Maanta waxaa baranaynaa marka qaabka ay u samaysan yihiin, qaabka loo kala garto, iyo xeerarkooda, waxyaabaha ay qabanayaan, iyo qaabka qoraalkooda iyo naqshadooda loo sameynayo. Sida hadda shaashadan kaaga muuqato, screen-kan muuqdo, wuxuu ka kooban yahay noocyada view-yada oo la isku geeyay. Waxaa ku jira image view oo sawiraha meesha ka muuqda, waxaa ku jira text view, textiya meesha ka muuqda, textiyada laftooda oo kala duwan, kuwa fartooda ay waaweyn tahay ama balbalaaran tahay, kuwa fartooda ay yar tahay, kuwa kalarkooda madow yahay, kuwa kalarkooda cad yahay. Waxaa kale ku jiro button. Marka waxyaabaha view-ga markii la isku geeyo waxay yihiin waxa shaashada markaas kaaga muuqanayo oo qofka user-ka markaas la falgalayo. Haddii aan mid u calaameyno waxay noqonaysaa sidaan oo kale. Qaybta kore waa image-ka haddana wuxuu leeyahay text view waa inta saaran. Qaybta hoose waxaa ka muuqda image, text kale inta saaran. Waxyaabahan dhexe text. Waxaa kaloo meeshan ku jira labo button, share iyo expose. Marka waxyaabahaas ayaa views-kaas oo la isku geeyay ay shaashadan ka kooban tahay. Marka waxaan baranaynaa saddexda ugu muhiimsan ama common-ka ah. Aad ay u fara badan yihiin. Saddexdaa baranayna waxay kala yihiin marka text view oo lagu soo bandhigayo qoraalka, haddii title aad soo bandhigaysid, haddii qoraal dheer sida paragraph oo kale aad soo bandhigaysid, haddii qoraal notification waxyaabahaas oo kale aad soo bandhigaysid, dhammaantoodaba wax allaala wixii qoraal quseeye waxaa u isticmaalaysaa text view. Image view waxaa lagu soo bandhigaa sawirada. Haddii sawir guri ama aqaad aad soo bandhigaysid, haddii sawir computer lagu sameeyo oo kale aad soo bandhigaysid, ama haddii sawir icon ah sidaan oo kale aad soo bandhigaysid, dhammaantooda waxa loo isticmaalo waa image view. Waxaa kaloo arkaynaa midka saddexaad ee commonka ah, button waa qofka user-ka meesha uu isticmaalayo si uu action u sameeyo, save, order, waxyaabahaas si uu sameeyo. Marka waxaa isticmaali kartaa button oo calaamad kaliya saaran tahay, ama button qoraal saaran yahay oo muuqda, ama button qoraal kaliya u taagan. Marka saddexdan ayaa maanta arkaynaa. Haddii barnaamij aad furto, waxa kuu muuqanaya screen kuu soo baxaya wuxuu ka kooban yahay view-yo
oo saddexda hadda soo sheegnay ay ugu badan yihiin. hadda shaashadan oo kale waxaa muuqda image, waxaa muuqda qoraal, dhowr qoraal kale, waxaa kaloo muuqda button. haddii mid walba aan calaameyno wuxuu noqonaa sidan oo kale. waxaa saaran a b c d e 5 view waa saaran. midka koowaad oo yahay image, midka labaad qoraal, midka saddexaad text asna, midka afaraad text asna, iyo midka shanaad ugu dambeeya oo button ah. okay, hadda tusaale kale haddaa soo qaadano applicationkan YouTube-ka, sidoo kale waxyaabaha uu ka kooban yahay shaashadan waa viewskaas waxaa ka mid ah midka ugu horeeya oo text view ah, kan labaad sidoo kale waa text view, kan calaamadan iyo batanada hoos. haddii mid walba aan calaameyno waxay noqonaysaa sidaan oo kale: text button, image. calaamadan YouTube-ka waa image, labadan hoosena waa button. image-ka iyo buttonada waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay iska dhex galaan, laakiin buttonka mar walba waxa uu xambaarsan yahay waa action. markii la taabto ama la riixo action aa dhacayo. tusaale ahaan hadda kan image-kan haddii aan taabto wax isbedelaya ama action dhacaya oo aan dareemaya ma jirto, laakiin skip haddaan dhaho ama next haddaan dhaho, mid allaala midka isticmaalo waxaa dhici doono ama aa arki doonaa action. so marka image-ka interactive ma aha, qofka userka ma isticmaali karo si uu ula falgalo barnaamijka, laakiin buttonka waa interactive. barnaamijka ayaa kala falgalaysaa, barnaamijka amar siinaysaa oo aad howl ugu diraysaa, skip dheh ama next dheh oo kale. marka waxaan rajeynayaa inaad qaybtan fahamteen. markaana waxaan u galaynaa qaybta xigta oo ah inaan aragno qaabkii loo sameynayay text view-yada ama image-ka ama buttonka hadday ahaan lahayd.